Jaqidda mise nuugidda suulka wuxuu ka mid yahay caadooyinka caanka ah carruurta qaar ka mid ah ay yeelanayaan. Cilmi-baadhisyada qaar waxay caddaynayaan ku dhowaad 70% ilaa 90% carruurta ay yihiin kuwa suulkooda nuuga. Carruurta waxay leeyihiin falcelin afka qalaad lagu magacaabo sucking reflex, macno ahaan looga jeedo falcelinta nuugidda. Taana waa wax ay ku dhashaan oo Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ku beeray. Falcelinta nuucani waxay carruurta ku sababtaa inay jaqaan farta mise suulka. Nuugidda suulka waxay carruurta ka helaan deganaanshiyo iyo aamin. Carruurta qaar xitaa waxaa dhici kara inay jaqaan suulkooda xilliyada ay doonayaan inay gam'aan mise hurdaan. Carruurta badidooda suul-nuugidda iskooda ayay iskaga joojiyaan, gaar ahaan marka ay da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 7 bil, halka qaar kalena ay ku joojiyaan da'da 2 ilaa 4 jir. Laakiin waxaa dhici kara inay sii wadaan. Mararka qaar ayaa waxaa dhaca carruurta horey u joojiyay nuugidda suulka inay dib ugu laabtaan, gaar ahaan marka ay carruurta wajahayaan cadaadis fara badan during stress time. Inta ay carruurta ka ilka dhacsanayaan, wax dhib ah ma lahan inay suulkooda nuugaan, laakiin haddii ilkaha horaanka ah dhacaan, wuxuu saameyn ku yeelanayaa dhan-xanaga iyo siday ilkaha xariiqda u samaynayaan. Khubarada qaar ka mid ah waxay soo jeedinayaan carruurta in laga joojiyo caadadan inta aysan da'dooda gaarin 3 jir, halka Machadka Ameerikaanka Carruurta qaabila American Academy of Pediatrics tilmaamayaan inay adag tahay in caadadan laga joojiyo carruurta da'dooda ka sarreysa 5 jir. Sideen carruurta ugu joojiyaa? Carruurtaada kala hadal arrimaha nuugidda suulka. Waxay u badan tahay inaad caadadan ka joojiso haddii aad adeegsato xeeladahan: abaalmarinta. Inaad carruurtaada ku abaalmariso dadaalkooda, sida inaad hadiyad yar siiso xilliyada ay joojiyaan nuugidda suulka, gaar ahaan xilliyada hurdada ay raadinayaan iyo marka ay TV-ga daawanayaan. Aqoon u yeelo waxa ku kiciya suul-nuugidda. Waxaad u fiirsataa waxyaabaha u horseedi kara inay suulkooda nuugaan. Tusaale ahaan, xilliyada cadaadiska. Haddii ay dhibaatadu cadaadis tahay, fadlan isku day si xeeladaysan inaad u xalliso. Xusuusinta. Mararka qaar ayaa waxaa dhici kara inay isilaawaan deedna biloobaan nuugidda suulkooda. Xilliyadan oo kale waxaa waalidka la gudboon inay sameeyaan xusuusin aan ahayn qaylo iyo dhaleecayn oo ay u tudhaan carruurtooda. Dhakhaatiirta qaar waxay soo jeedinayaan in la adeegsado xeelado qalafsan sida suulka ilmaha in loo mariyo waxyaabo qareedh ah mise in suulka lagu duubo faashad.